السلام عليكم maanta waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago filim cabsi isla markaana Australiana kaasoo soo baxay 2012 laguna magacaabo Bait balse intaynaan muuqaalka u guda galin haddii aad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe iyo like saar gambaleelkana furo si aad u rukumato ay ku soo gaaraan muuqaalada cusub ee aan bartan ku soo gudbino ku soo dhawaada muuqaalkeena iskana taxadara filimku wuxuu ku bilaabmayaa wiil lagu magacaabo Josh oo hurda gaari dhexdii kaasoo uu toosinayo saaxiibkii Rory waxaana uu sheegayaa inay waqti dambe tahay oo uu ka kaco hurdada intaanu tagin ka hor sidoo kale waxa uu sheegayaa inay walaashii Tina ku sugayso xeebta Josh ayaa soo aaday xeebta si uu u arko gacalisadiisa Tina oo ah Rory walaashii way wada fadhiisteen waxayna ka wada hadlayaan safarkooda soo socda ee Singapore intaa kadib waxa si lama filaan loo waayay nin ku dabaalanayay biyaha ilaaliyihii oo ku sugnaa munaaradda waardiyaha ayaa qof walba u sheegay khatarta ku soo wajahan isagoo ugu baaqaya inay ka soo baxaan biyaha Rory oo wata laashir ayaa taagan bartamaha biyaha waxaana xagga hoose ka soo weeraraya kalluun aad u weyn kaasoo jabinaya laashkiisii Josh ayaa isku dayay inuu badbaadiyo waxaana uu si degdeg ah u qabanaya gacantiisa laakiin kuma guuleysan waxaana hoos u jiidanaya kalluunkii gacantiisina waxa ku soo hadhay silsiladii oo kaliya intaa kadib biyuhu waxay soo tufayaan qaybo kamid ah jidhkii Rory filimkuna wuxuu isku jarayaa 6 bilood kadib wariye TV oo dadka uga digaya libaax badaadkii oo ku soo dhawaaday xeebta Josh ayuu cabayaa waxaana uu daawanayaa sawirada isaga iyo Tina ee ku dhagan gidaarka intaa kadib waxa uu soo aaday shaqadii intii uu jidka ku soo jiray waxa uu arkay shimbirihii oo hayaamiya iyo waliba eedii oo qaylinaysa ugu dambeyn waxa uu soo gaaray supermarketkii uu ka shaqaynayay waxaynu aragnaa gabadh lagu magacaabo Jimmy oo alaab ka xaday dukaanka taasoo uu waardiyuhu dabagal ku hayo dhanka kale waxaynu aragnaa Kylie iyo Heather oo gaadhi dhiganaya baakinka hoose ee supermarketka kaasoo eeyga saaxiibtii ku tuuraya xagga dambe si uu u qashqashaado Jimmy waxay aragtay waardiyihii oo dabagal ku haya waxayna u soo orday qaybta shaqaalaha si ay ula kulanto saaxiibkeed Ryan oo isaguna isla goobta ka shaqeeya Ryan markuu arkay miraayadaha uu xanaaqay waxaana uu sheegay inay si degdeg ah ugu celiso bartii ay ka soo qaaday mulkiilihii supermarketka oo lagu magacaabo Jess ayaa goobta soo galay isagoo uu la socday waardiyihii waxaana uu sheegay inuu ka eriyay Ryan shaqada isagiyo saaxiibtiina uu booliska u dhiibi doono goordhow Josh oo shaqadiisa wata ayaa isha ku dhuftay Tina iyo saaxiibkeeda cusub ee Stephen oo ka soo laabtay Singapore isagoo eegaya waxa aanaantay booskiisa una sheegay inuu shaqadiisa qabsado intaa kadib waxa goobtii soo galay nin askari ah kaasoo markii dambe noqday Jimmy aabaheed waxaana uu soo kaxeeyay Jimmy si uu u edbiyo laakiin Jimmy waxay la murmaysaa wali aabaheed ugu dambeyn waxa uu ku xiray daaqadii gaadhiga intaanu fuulin gaadhiga waxa uu arkay nin isqarinaya oo gadaal ka galaya supermarketka hubkiisii ayuu soo qaatay waxaana uu daba galay ninkii tuugii waxa uu baaskoolad kaga qabtay madaxa Jessab isagoo uu sheegay inuu soo saaro lacagta Jessab waxa uu sheegay in aan lacag meesha ku jirin oo uu meel kale ku xifdiyay tuugii waxa uu baaskooladii ku soo kaxeeyay mulkiilihii isagoo ka dalbanaya inuu u kaxeeyo halka ay lacagtu taalo laga kale Jimmy aabaheed wuxuu u dhuumanayaa tuuga si uu u qabto waxaana uu baaskoolad madaxa ka saaray isagoo ku amray inuu ku soo wareejiyo hubka si kastaba ahaatee tuug kale ayaa baaskoolad madaxa kaga qabtay gabadh lagu magacaabo Julia oo ka mid ah shaqaalaha kaasoo dalbanaya in la sii daayo saaxiibkii dhanka kale Ryan ayaa u yimid Jimmy waxayna bilowday inay uga cabato aabaheed laakiin waxa uu sheegay inuu aabaheed saxan yahay sidoo kale waxa uu sheegay inuu jecel yahay oo uu darteed u waayay shaqadiisii waxayna u sheegtay inuu dib u heli karo shaqadiisa wayna ka tagtay Ryan waxa uu galay gaadhigiisii isagoo murugaysan dhanka kale tuugii waxa uu dilay Julia goobtana waxa soo istaagay Josh laakiin tuugu wuxuu ku hanjabayaa haddii uu tallaabo dambe soo qaado inuu madaxa ka toogan doono Tina iyadoo ay xaaladdu halka marayso waxa magaaladii ku soo fatahay biyihii badda iyadoo cagta marisay dadkii baabuurtii iyo waliba guryihii waxaynu aragnaa Josh oo madaxa kala soo baxay biyihii kuna dhawaaqaya magaca saaxiibtiisii hore ee Tina wax yar kadib waxa uu arkay Stephen oo sida askarigii oo dhaawac ah kaasoo biri ay ka gashay lugta waxaana uu saaray birtii supermarketka Stephen waxa uu raadinayaa tuwaal uu nabarka ugu xidho sidoo kale waxaynu aragnaa Jimmy oo soo dabaalanaysa xagga aabaheed Josh ayaa caawiyay waxayna isku duubtay aabaheed wuxuuna weydiiyay sida ay uga soo baxday gaadhigii taasina waxay xasuusisay saaxiibkeed Ryan waxayna bilowday inay si naxdin leh uga hadasho saaxiibkeed Ryan laakiin ninkii tuug ahaa oo lagu magacaabo Doyle ayaa u sheegay in ay gabi ahaanba qaybtii baakinku ay qarqoontay Jimmy dib ayay u fadhiisatay iyadoo Rachel waxayna bilowday inay ooydo intaa kadib Josh ayaa meel fog ka arkay Tina oo si argagax leh ugu dhagan bir xageeda ayuu soo dabaashay waanu soo kaxeeyay intii uu sii waday wuxuu arkay meedadka dadkii dhintay oo hoos loo jiidanayo sidoo kale waxaynu aragnaa gabadh lagu magacaabo Niimu oo isku dayaysa inay fuusho birta iyadoo caawimaad ka helaysa Doyle dhanka kale Stephen isagoo ku guda jira raadinta tuwaaladii waxa si kadisa ugu
soo booday nin lagu magacaabo Kirby kaasoo ka dalbanaya caawimo. haddii aynu eegno dhinaca baakinka waxaynu aragnaa Heather iyo Kaylee oo ku xaniban baabuurkoodii. sidoo kale waxaynu aragnaa Ryan oo ku dhex jira gaadhigiisii waxaana uu ogaaday in si tartiib biyuhu ugu soo qulqulayaan baabuurkiisa. intaa kadib waxa uu jabiyay daaqada baabuurkiisa waxaana uu soo dabaashay banaanka. Stephen iyo ninkii kale waxay ku soo noqdeen goobtii. Tina iyo Stephen laabta ayay iskeliyeen waxaana sheeda kala socda Josh oo ka xun maadaama oo ay tahay saaxiibtiisii hore. Josh ninkii dhaawaca waxa uu ka soo saaray birtii kaga jirtay lugta. Jessup waxa uu isku dayay inuu caawimaad ka helo banaanka laakiin uma suurtagelin. Josh waxa uu kooxdii u sheegay inay isu qaybiyaan laba kooxood. qaybi waa inay la joogto Todd oo ah askariga dhaawaca qaybta kalena waa inay raadisaa albaabkii laga bixi lahaa. Tina ayaa ugu jawaabtay inay iyada iyo saaxiibkeed soo hubin doonaan albaabka waxayna isku tuureen biyihii. Doyle ayaa dalbaday inuu raaco oo uu 3 ku noqdo laakiin Todd ayaa diiday maadaama oo aanu ku kalsoonayn waxaana uu raacay askari kale oo lagu magacaabo Bob waxa uu isku tuuray biyihii isagoo daba socday Stephen iyo Tina. dhinaca kale waxaynu aragnaa lamaanihii Heather iyo Kaylee oo muran dhexdooda ka dhashay. sidoo kale waxaynu aragnaa Ryan oo sii dabaalanaya xagga baabuurta. dhanka kale Josh waxa uu biyaha ku meedhanaya nabar ka soo gaadhay gacanta waxaana uu arkay meedadka dadkii dhintay oo si tartiib hoos loogu jiidanayo. intaa kadib waxa uu kooxdiisa ku wargeliyay inay biyaha ka fogaadaan. Stephen iyo Tina oo maqlay codka Josh waxay isku dayeen inay u soo dabaashaan dhankooda laakiin nasiib xumo Bob waxa haleelay wixii meedadka jiidanayay. dhanka kooxda ayuu soo cararaya isagoo dalbanaya caawimo. Jimmy ayaa qabatay gacantiisa waxaana si lama filaan ah u kala go'ay gacantiisii iyo qaybta dambe ee jidhkiisa. Jimmy ayaa gacantiisa sii daysay iyadoo argagaxsan. qof kasta waxa uu bilaabay inuu hareeraha eego isagoo wareersan waxayna arkeen libaax badeed aad u weyn oo dhex mushaaxaya biyaha. dhanka kale Heather ayaa kala soo baxay madaxa gaadhigii isagoo hareeraha eegaya. Ryan ayaa arkay waanu u dhawaaqay. iyagoo wada hadlaya Heather ayaa aragtay libaax badeedkii weynaa. Kaylee gaadhiga ayuu dib u soo galay wuxuuna arkay libaax badeedkii oo isku dayay inuu jabiyo daaqada gaadhiga. dhinaca kale kooxdii iyagoo wada hadlaya waxay dareemeen gariir ku yimi goobta kaasoo sababay fiilooyinkii dabku inay ku dhex dhacaan biyaha. waxayna yaqiinsadeen haddii aanay korontada goynin inay halis galayaan dhammaantood. Josh ayaa sheegay inuu isagu aadi doono meesha laga bakhtiyo korontada laakiin Tina ayaa u sheegtay dhiigga ka baxaya nabarkiisa awgii inuu ku soo weerari karo libaax badeedku. sidoo kale Stephen ayaa sheegay inuu hayo fikrad. dhinaca kale lamaanahani waxay weli ku xaniban yihiin gaadhiga. Kaylee ayaa banaanka uga soo baxay isagoo qaylinaya caawimaana ka dalbanaya Ryan laakiin Ryan ayaa u sheegaya inuu istajiyo. kooxdii waxay diyaarinayaan Stephen si uu u soo bakhtiyo korontada. Tina waxay la dardaarmaysaa gacaliyaheeda una sheegaysaa inuu nabad ku soo noqdo. Stephen waxa uu galay biyihii isagoo ku socda qolka laga maamulo korontada waxaana uu neefta ka helaya tuumbada ay hayaan kooxdiisu. markii uu soo dhawaaday goobtii tuumbadii ayaa dhammaatay waxaana uu isku dayay inuu soo jiido laakiin Josh ayaa dib u celinaya si aanu u quusin. intaa kadib Stephen ayaa iska jaray tuumbadii waxaana uu bakhtiyay korontadii. Stephen wuxuu isku dayay inuu dib u soo dabaasho laakiin uma suurtagelin waxaana dejiyay culayska birihii iyo daasadihii ku xidhnaa. Tina way niyad jabtay waxayna bilowday inay oydo. dhinaca kale Ryan ayaa gacanta ka gooyay mayd waxaana uu dhex geliyay biyaha si uu ugu soo jiito libaax badeedka wuxuuna lamaanaha u sheegay inta uu isaga ku mashquulsan yahay libaax badeedku inay ka baxaan goobta. dhinaca kale Doyle ayaa xarig ku soo maray saqafka sare sheegayna in loo baahan yahay qof fuula dhunta hawo mareenka. Jessup ayaa sheegay inuu isagu hawsha qaban doono. xarigiina wuxuu ku martay dhexda way soo jiideen waxaana uu furay hawo mareenkii laakiin waxa soo weeraray boqolaal casaaya badeed waxaana uu ka soo laalaadsamay meeshii. intaa kadib waxa ku soo booday oo qaarka dambe ka goostay libaax badeedkii. dhinaca kale Ryan wuxuu go'aansaday inuu aado dhanka lamaanaha isagoo ku gurguuranaya saqafka sare laakiin nasiib xumo wuxuu ku dhex dhacay biyihii. waxa soo weeraray libaax badeedkii isagoo ku badbaaday in yar. isla waqtiga waxa biyaha ku dhacay Heather saaxiibkeed Kaylee waxay isku dayeen inay badbaadiyaan laakiin waxa jiitay libaax badeedkii. Doyle wuxuu la yimi fikrad wuxuuna sheegay inay isku dayaan inay dabin ku qabtaan libaax badeedka si ay u xadidaan dhaqdhaqaaqiisa ugana baxsadaan meesha. si kastaba ha ahaatee waxay isku raaceen inay dabin u dhigaan libaax badeedka afka horena kaga xidhaan hilib. intaa kadib hilibkii ayaa hoos loo dhigay si loogu qabto libaax badeedka laakiin nasiib xumo wuu dhaafay kumanuu dhicin dabankii. Kibri ayaa dib u soo celiyay dabankii isagoo sheegaya inuu libaax badeedku doonayo kaliya hilibka dadka wuxuuna baaskoolad kala soo baxay sharabaadkiisii kuna qabtay gabadh lagu magacaabo Nemo wuxuuna sheegay inaanay cidina u soo dhawaan karin. kooxdii waxay ogaatay inuu yahay tuugii dilay Julia. intaa kadib wuxuu dabinkii ku xidhay shaadhka gabadha wuxuuna ku tuuray biyaha. Doyle ayaa mindi ka taagay dhabarka halka kuwii kalena ay ka soo saareen gabadhii biyaha. Doyle wuxuu dabinkii ka taagay laabta Kibri wuxuuna ku tuuray biyaha. libaax badeedkii wuu cunay wuxuuna ku dhacay dabinkii. dhinaca kale Heather iyo Ryan oo ku dul fadhiya gaadhi qalimay ayaa arkaya eygii Heather oo qaylinaya una soo socda xaggooda. nasiib wanaag uu soo gaadhay isagoo nabad qaba waanu badbaaday. intaa kadib Ryan wuxuu bir ku garaacayaa saqafka sare si ay u maqlaan dadka kale ee ku xaniban dhismaha. kooxdii kale waxay
maqlayaan dhawaqii waxaana isu diyaarinayaan inay dabaashaan. Josh iyo Jimmy waxay u soo dabaasheen xaggii uu dhawaqu ka baxayay halka ay kooxdii kale aadeen dhinaca kale. Ryan wuxuu ugu digayaa inay biyaha ka baxaan maadaama uu ku jiro libaax badeedkii, waxayna ku guuleysteen inay fuulaan gaari kale. Jimmy waxay u sheegtay inuu qori saaran yahay gaariga aabahe, isaguna wuxuu u sheegay inay ka mashquuliso libaax badeedka si uu soo qaato qoriga waana u suurta gashay. Intaa kadib wuxuu isku tuuray biyihii waxaana uu dilay libaax badeedkii. Kooxdii kale waxay isku dayeen inay furaan albaabka laga baxo, waxaana dhacay gariir xoogan oo sababay libaax badeedkii kale inuu soo goosto dabinkii. Laakiin Josh ayaa koronto ku qabtay taasoo sababtay qarax weyn oo furay albaabkii. Kooxdiina waxay banaanka uga soo baxeen goobtii. Filimkuna wuxuu ku dhamaanayaa halkan. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Ha ilaawin inaad muuqaalka like iyo subscribe saarto, gambaleelkana furata si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada cusub.